walaalayaal waan islaamaya codkayga ma maqlaysaan xaawataako codkayga ma maqlaysaan dhammaantiinna waan islaamaya walaalaha qaaliga ah meel kastoo aad joogtaan ummadda Soomaaliyeed bahdaan jeclaay bulshada la iga beerow aad iyo aad baan idin salaamaya habar Xalimo Cusmaan soo dhawow dhammaantiinna waan soo dhaweynayaa may maqashaan xaawo abaay may maqashaan si fiican ma ii maqlaysaan thank you وما سنتين habar Xalimo aala uma santa ma sha Allah wax badan baan ka wada hadlaynaa insha Allah horta marka ugu horeyso walaalayaal dhamaantiina meel kastoo aad joogtaan bahdii la iga beeray bulshadaan jeclaayo Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waan islaameynaa maanta waa adkaysan waayay ayaamahan waa ii jeedaan ma soo hadli jirin hawada waan ka yara baxay inkastoo aan still shaqaynayna midnimo qaran oo markasta wanaaga dalkeena iyo dadkeena iyo mataqaana aan mar walba wax soo gudbinaynay haddana qalbi jab badan baa iska jiray oo dalkeena iyo mataqaana wadankeena waxyaabo badan baa isbedel oo aan wada filayn ayaa ka dhacay على أي حال ما أنت وحنا نصوغ لي ضميرك يديك يبهذ اللي قبل يديك الله يقبل أيان لا أكيسون واي وحنا ربما مركو قريسين عن أمة الصوماليات شدادين تهلاكتي إلا قماضي إلهي سبحانه وتعالى وحنا قبرينا إن إلهي عافيه كل وضعنا حريصته أنت النور إن إلهي عافيه أنت داوع متى إن إلهي أبوغ دايو إلهي وحنا كبرينا سبحانه وتعالى عز وجل إنه نضبق بطوء أيان إلهي كبرينا ومدينا وحق قماضا يا هبين يا مالنا إلهي سبحانه وتعالى إنه متقانا حقة الصوء أو عدوجين إلهي إنه نوم ذي أيان إلهي كبريا سبحانه وتعالى ومدى الصوماليين عدوجود إن إلهي ذي وحن كل سنة يا جدبية أو سيدة ما يسترى أو ولا لها كلا لو ذاك ولا ليان إن ير أيان ربائنا وحي عرقت ذي تطهي عرقت هذا كوجمة ديدني لكن وحي أنا عرقت ذي تطهي يضل كيجي وحي عنك أركو إنا وحي ركا فالله أو كهلا أيان إن شاء الله بإذن الله ربادو يقول هذا عن ربا بإذن الله لما أنتي والدين مهد علينا يا أنتي ناديبة ومتقنا برنامج شير جريسي لو ذاك ولا لها صوماليات أنت وحجرتك أو لما أنتي نلاحظتي أن جور قبطاء all the time لصعت برنامج قيمها بدنا من مقرن أدبر نكون مهد علينا بكس وحن آمسنا يقف كسوء صوماليات oo midnimo qaran la socda inuu yahay qof dalkiisa jecel because anagu waxa aan la hadalnaa ama habeenii maalin baan raadinayno waxa waa jecelka dalkeena waxa aan raadinayno waa dalkeeni waxa aan rabnaa inaan wax ka ogaano waa dalkeeni waxa aan rabnaa inuu hagaago waa dalkeeni waxa aan rabnaa inaan aragno mataqaana dib u hagaajin waa dalkeeni marka dhamaantiin walaalayaal waan salaamaya ummadeena Soomaaliyeed ee la gumaadayna Ilaahay ha u naxariisto dhamaan ehelada iyo qaraabadana samir Allah ka siiyo asaga awood leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala horta Soomaaliyeed runta horta waxa la yiraahdaa kama naxiso runta dadka Soomaaliyeed runta horta reality waxay tahay dadka Soomaaliyeed dhibaatada ku socota ee 32 sano ku socota waa mid ay galabsadeen waa xaq darro ay galeen waa maxay heetay dadku markay bili aadanka ah ay xaq ka leexdaan oo ay mataqaana dulmiga isugu riyaaqaan oo ay dulmiga garab istaagaan ciqaabta alla kama dhamaato horta qofka Soomaaliya taa ogaado ciqaabtu kama dhamaato qofka islaamka ah ee xaq ka diida حق ديدا إنه هجاجيو حق ديدا إنه أضاده حق ديدا إنه محيط إلاليو توحي وقليه هو ظلمي كان إلهي موقلا مركا إلهي سبحانه وتعالى عقاب ومدى الصومالية وقطلع قلي أيا صعطة هم تمركا نبين شيخو غير مقدشنا وحان أنيقا جميلة أهان ما أنت آن ربا إنان لو ذاك غير مقدشة وان شعلها برطان كبر بارية بنادر سري أدون كان وجعلها لكن أنيقا كل دباطة صعطة أنا ضمقضي اسكا صعطة سيدا الروب كي سيقد أيسا أن استاقينين صدن يلا بسان عمر كل علي أن شوك سنينين وحان آمن سنة هاي غير مقدشو إن قبقشين وحان آمن سنة هاي غير مقدشو إن ظلمك أو آمستين وحان آمسنا هاي ريم مقدشو إن حق دبوشين وحان آمسنا هاي ريم مقدشو وحيدين سيعن يا وحيدين حم من إن عندك لجرانين أنا وطن أنا آمسنا هاي أنا حاربت آمسنو لكن أنا وحان آمسنا هاي مقدشو معجزة كان كسعطة جماعة كان كسعطة دبعتنا كده مانين هذين يمان ومضي صوماليا الناس عن
dayb looga haysto maxayta lugaha looga dabray ee dabarka loogu haysto muqdisho xaqii ayaa dadkii ku noolaa ma dhahayo kulligood laakiin xaqii ayay dabooleen dulmigii ayay garbiyeen waxay u istaageen habeen iyo maalin qabyaalad xun oo laciif ah oo aan waxba ahayn ba'na ahayn ta'na ahayn ayay u istaageen waxay ku fadhiisteen oo ay hagoogteen magacii ummadii Soomaaliyeed xundurtii ummadii Soomaaliyeed meeshii ummadda Soomaaliyeed laga dhisi lahaa laga hogaamin lahaa ayay ku hagoogteen ha ku hagoogtaane xaqina waa dadbeen marka reer muqdisho cuqubada inay haysata ka istaaga cuqubada inay haysata ilaahay xaqiisa u hiliya oo idinku waxa naftiina u fiican kaliya garta bal idinku waxaad garataan waxa naftiina u fiican reer muqdisho waxa garataan waxa naftiina u fiican waxa garataan waxa idinka danta idin ah waxa garataan waxa idinka aan idin baabiinaynin idin gumaadaynin aan idin masaqana gadaal idin reebin ee danta idin ah ogaada ma ogaanaysaan because qabyaalad xun oo laciif ah oo maxay tahay idin gumeediye ah oo qashin ah ayaad hogoogateen xaqiina waa daboosheen dulmigiina waa garbiseen daas way aan hadda qof idin fiican hadduu u yimaado xataa oo uu maanta idinka soo dhex baxo qof idin fiican xataa garab istaagmaysa hadduu xasan sheekh walaalkiis oo malaa'ig ah oo wadani ah oo dalka jecel oo maasha allah ah oo nin alla ka baqaayo ah hadduu soo baxo xataa garab siin maysa hadda xataa waa soo qabyaalad baaskeedin la garab siin maysa anigu maanta marka waxaan ku baaqiyaa ummadda Soomaaliyeed ay maanta waxaan anigu idin ka codsanayaa oo ku baaqiyaa magaalada muqdisho laga qaxo qofkii caqli lahow kii dadnimo lahow kii Soomaalinimo lahow kii wadaninimo lahow muqdisho busahaaga ka qaado muqdisho busahaaga ka qaado ka qax muqdisho 1991 waa laga qaxay haddana ka qax waliba reer muqdisho inta damiirka lehay ka qax inta danta maxay tahay Soomaalinimada jecelay ka qax inta ummadnimada jecelay ka qax inta midnimada jecelay ka qax inta naftooda jecelow ka qaxa because muqdisho xaraan bay ka tahay inayna degeen because imrigayga oo 3 jibaaran baan sugayay inta waxaan sugayay muqdisho nabad noqon mayso because xaqii bay ka aamuseen because cuqubaha socoto haka yaabin dhulka Soomaaliyeed aada xageen aada midka soo qorayo dhulka Soomaaliyeed waa badan yahay Somaliland taga Puntland taga Jubaland taga maxay tahay hebelow kulli Soomaaliya taga dalkaaga laakiin ka qaxin laakiin gobolada u qax every magaalo kale magaaladan muqdisho ee ummadii Soomaaliyeed la hartay hal laga yaaco anigu waa kulli sidaan ilaa kulli hal laga qaxo waa hadii laga qaxo dalku waa hagaagaya gumaadkan hal meel inta ummad Soomaalidu isku soo aruursado gumaadayana maxay heetay waa kala badbaadi lahaa mid kalena waa idin sheegaya dagaal sokeeyo oo number 1 oo hadda koow ah aamin ka dhici doona meesha dhow muqdisho sababtaan idin sheegaya shalayta wixii dhacay qabyaalad bay ahayd hoteelka la weeraray reer baa iska leh hoteelka la diiday in la badbaadiyo ilaa la gubayay reer baa iska leh hoteelka la diiday dadkii ku noolaa masaakiinta ah in la badbaadiyo reer baa iska leh dadka masaakiinta ku dhintay reer bay sheeganayaan dad baa leh dhalay ehel bay ka soo jeedaan waxaasoo dhan loo sameeyey oo loo diiday hoteelkaas dhan oo businesska ahaa oo magaalada hoteelkii dadku ummadda seexanaysay ah in la badbaadiyo ilaa waa la badbaadin karay because of qabyaalad qabiil ku foogan habeen iyo maalin waxay noqotay caasimadii dalku qabiil ku foogan midnimo iyo Soomaalinimo iyo wanaag iyo wadajir iyo maxay tahay caasimad waa la diiday qabiilka hoteelkiisa loo diiday in la badbaadiyo ilaa uu dhulka galo oo daato la diiday in la badbaadiyo dhulka kama imaan Soomaali kala waay reer kala waay ehel kala waay dadka ku dhintayna dhulka kama imaan marka dagaal sokeeyo oo run ah oo koow ah ayaa ka soo socda haddaad u malaysaan madaxweyne leedihiinna Soomaali caqli xunay madaxweyne madahib yuroon aad madaxweyne ka dambeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababta ku sheegaya
xasan sheekh waagii hore madaxweyne uu ahaa waxa khaldo gabdhaha gato maxay tahay waxyaaba raali laga ahayn ha saxiixo but at least he was acting madaxweyne inuu yahay laakiin xasan sheekh this year 2020 mentally ill xasan sheekh mentally ill why he's not okay adadnima ma jirto aqli ma jiro maskax ma jirto xasan sheekh waa mentally ill because what garan kartaa hadda aqli leedahay xasan sheekh is not normal sababta una normal u ahayn xasan sheekh hatta yesterday hadii loo haystay inuu waxaleeyay wuxuu ka faa'iideysan lahaa maanta jaaniska Allah subhanahu wa ta'ala u gartay ayuu ka faa'iideysan lahaa wuxuu ka faa'iideysan lahaa ilaahayga mar kale u ogolaaday inuu ummad dad la dhaho Soomaali uu madaxweyne u noqdo oo maamulo wuxuu ka bilaabi lahaa ummadiisa inuu isu keeno wuxuu ka bilaabi lahaa inuu madax fiican doorto wuxuu ka bilaabi lahaa inuu maxay tahay siyaasad casri ah oo wanaagsan oo clean dhisto wuxuu ka hatta xasan sheekh maanta ma rabo inuu wax dhaco xasan sheekh hatta $1 maanta ma qaadanayo ana runta idin sheegaya xasan sheekh wuxuu u baahan yahay dhaqtar xabeeb xasan sheekh wuxuu u baahan yahay dhaqtar in la seexiyo oo la xirxiro because he's mentally ill xasan sheekh is not normal wallahi inuu ahayn oo billahi oo qof aqli leh oo maskaxdiisa joogto oo raba inuu legacy ka tago oo raba inuu magac reebo madaxweynenimo in uusan u dhiibeen wadanka dhan siyaasadiisii inuu Mooryaan u dhiibeen wuxuu soo xuli lahaa nin Mooryaanka in adeerkiisa oo laakiin siyaasi ah oo laakiin kireen ah oo laakiin wadani ah oo laakiin raba dal oo laakiin raba inuu taariikh reebo ayuu soo xuli lahaa muusan u dhiibeen ولدي كون في رسالة حتى شي قفك soo doortay waxa waay ciyaarka xaafada intii oo farmaajo tuuriyeenaysay oo qabyaalada raadinaysay oo dhahay geela aruusano oo farmaajaha soo jiido oo farmaajaha la dilo kulligood waxa laga dhigay oo aan ka aqoon badanahay oo aan ka cilmi badanahay oo aan ka dadnimo badanahay oo aan ka kulligood waxa laga dhigay siyaasadii nisa waxa laga dhigay maxay tahay darbi ka booday waxa laga dhigay maxay tahay waxa loo dhibay gudoomiyaha dhama oo baarlamaankii dalka dhan min aqoon dhan ma jirto min hatta dadnimo ma jirto hatta wadanimo ma jirto xasan sheekh haduu normal yahay intaas ayaa idin cadeynaysa Soomaaliyeed xasan sheekh his mentally ill wuxuu u baahan yahay in si degdeg ah oo emergency ah dhaqtar xabeeb ama dhaqtar karo oo waalida loo geeyo ayuu u baahan yahay xasan sheekh wuxuu u baahan yahay quraan la saaro oo xasan sheekh hatta xaasaskiisu baata kuma xirmaan nin waalan xaaskiisa hatta kuma xirmo idinkana waxa leeyihiin madaxweyne Soomaaliya ina kulligiin mentality saa ku garo because xasan sheekh his mentally ill xaaskiisa hatta kuma xiranto nin waalan xaaskiisa hatta kuma xiranto seebu dal u hogaaminaya ii sheega seebu dal u hogaaminaya war xasan sheekh muxuu dal ku hogaamin karaa asagiiba maba oga meeshuu maraye muxuu dal ku hogaamin karaa wax alla wixii 5 sano dalkeenu wuxuu u soo kacay anigu farmaajo inaan qabiil ku taageeraynin Soomaaliya horta aqal hadaa leedin waa garan kartaa anigu waxaan rabaa nin dalkaan iyo hagaajiya oo ummadayda badbaadiya ani hatta inaan tagay who knows Allah know inaan hatta waliga tigin baa dhici kartaa laakiin sansaankii 5 sano cadawgii Soomaaliya geel lagu xiray dalkeenii la dhisay ciidankeenii la dhisay waxa soo dhan wuxuu ku baabiyay inuu bishaara khalif soo dhow inuu rag iyo dumar Mooryaan ah tuuga baaba aqoon lahayn kulli xilalkii Soomaaliya ku safo kulli xilalkii Soomaaliya baa dhimatay ma qof aqoon laha la waay qabiil kasta qof educated saas uga buuxa qabiil kasta qof aqli leh saas uga buuxa qabiil kasta waxa ku jiro qofkii Soomaali hogaamin lahaa waa ku jira qabyaalad baaska ay isticmaalaan qofkii Soomaali hagaajinaha waa ku jira laakiin xasan sheekh waa mentally ill xaaskiisu kuma xiranto caruurtiisa ma cishan karo naftiisa ma cishan karo iska badaa dawlad inuu hogaamiyo iska badaa inuu dal iyo dawlad hogaamiyo iska badaa inuu dal iyo dawlad hogaamiyo because xasan sheekh idinku aqligiina ka shaqaysiya haduu normal yahay oo una maskaxiyan mentally ill lahayn ma uu sameeyaan waxa uu sameeyo ma uu keensadeen Mooryaan oo dhan isku soo wareejiyeen ee wuxuu ka bilaabi lahaa siyaasad oo casri ah wuxuu dhihi lahaa wixii shalay aan haleeyay maanta laakiin ummadda Soomaaliyeed ballan baan ka qaadiyaa inaan tuso inaan ahay someone else inaan ahay qof fiican inaan ahay taariikhan awlaadeeda uga tagayo xasan sheekh wuxuu u baahan yahay dhaqtar xabiib in loo geeyo maxaa la jira xabeeb in loo geeyo haddii kale wadamada kale la geeyo dhaqtar loo geeyo xasan sheekh
ilaahay baa u maqan dalkan mentally ill dad Soomaaliyada wada xanuunsan waa iska daba galeen wasa ninka madaxweynahana waa nin naagtiisa xataa ilmihiisu aan ku xirmin oo xarig lama sitaan sac foofay weel ma u xirno waa nin oo maxay iska socdo oo ilaahay moogi ilaahay un baa noo maqan Soomaaliyeed now ninkii Soomaaliyeed aad madaxweynaha ku sheegtay mentally ill ka ahaa waad ogtiin NSK dhamaa ama nisa oo dalka dhan meeshuu geeyay waa ogtiin dalna maanta dalka aan joogo waxaan saa ugu xaroonayaa aan saa ugu baashaalaya waxa weeyaan nisihiisa ama CIA-giisa waxaan halka ku fadhiyaa waa wadanka siyaasadiisa nabad sugidda waay waxaan halka ku fadhiyaa oo ku maraya oo ku shaqaysta awlaad ku korsada waa dalka siyaasadda adag oo leeyahay siyaasadii markii maafiya loo dhiibo oo loo qaybiyo only maafiya adiga waligaa macayda farmaajo ha soo waxaan ku hayaa maxay gudoomiyaha gobolka waxaan ku hayaa gudoomiyaha maxay baarlamaanka waxaan ku hayaa nisa oo adiga ninkii Soomaaliya qabyaalada geer u soo arursaday adiga nisa ba ku hayaabo adiga waxaan ku hayaa farmaajo waligaa ma nacday dadka farmaajo caay ma tahay war ninkaan haduuna xanuunsanayn saa uma fakareen war ninkaan haduuna xanuunsanayn maafiya kama adeegateen war ninkaan haduuna xanuunsanayn wuxuu ilaalin lahaa asaga xataa dadkii uu ka dhashay qabiil baaskii uu ka soo jeeday qabiiladan baasee lagu oo dalka dhan loo dumiyey ayuu xataa dhihi lahaa war nin reerkaasaan ahay oo adgaalo waa inaan sumcad ka tagaa waa inaan sidii muduloodu maxay tahay aadacadda sharaf uga tagay waa inaan sharaf dalka uga tagaa ayuu dhihi lahaa no he's mentally ill xaaskiisu kuma xirmato awlaadiisa ma hayn karo annagana bal inuu madaxweyne noo noqdo warkeeda daa ummadda Soomaaliyeed maanta waxaa la awal wixii arkayno dhan ka daran waxa nin dadkii oo dhan laayay oo maxay la dhahayo waxa laga dhigayaa waxa loo dhiibayaa diinta oo dhan oo waxa loo dhiibayaa wasaaradaha diinta oo dhan mid kale waxa soo baxay 500 oo ciidan oo maafiya ah oo maxay ciyaal fay caliya oo wata oo dadka dhaqoorta ka goynay oo dadkii dhan baabiyay oo haddana la dhahayo waxa loo dhiibayaa asagana wasiirka gaashaandhiga waa adiga meel mooryaan wada gashay waa mooryaan dalkii Soomaaliya maafiya